بلدان كرفيو إنان كارو فاشدو قذافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قاقنا ندي أنا وحان قديايو مكان سو قدينايو كوني إسو تاقاني وادو أنددوينو كيس لاقا مراجرين بلدان كرفيو إنان كارو فاشدو قذافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قاقنا ندي أنا وحان قديايو مكان سو قدينايو كوني إسو تاقاني وادو أنددوينو كيس لاقا مراجرين وحيقارو صومالي قارو كلا تركي معي كلا ترشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhammaanteen mahadda labaad waxale madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonka sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof wala af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka wala soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal isku afartaan dad saaxiib ah la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ay nasaaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hal la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumay taas baa inaga soo ku soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoys maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nimid idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arintu waxa ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan idhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegaya guddiga farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar خاصة بها إن ما أنت واحد ولا سوى فرصة وحاول أن تلاوي جيران ما أنت لسه أفكار كره حا إنه هالكي أفضل كل شيء كره حا أقول له نقول هذا الشيء كرهنا حا أذك أنا وحلا يهضر معي إلى حال ما ناكل الصحة حا نطلع قاضنا هالكي إنه كي قلنا حا إنه contribution حا إنه كتر شركة إنه بوليستو أولو بوليسنو آد بان صوتين آد بان وهذا وحنوضنا ورب الشركة يا أمد إن السوق سام حال بقول سكرة أنت يمكن السوق ولا يشين كرة أنت واعدك حال قاد كرة مركا إذا كانوا واحد ردينا لم يدون باتين بيلة هاي
dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowreysanayso dee idinkaanu tegano halkaan wadii fadhina isaa iyo ilaahay idankii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaadhaa dee anugu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantiin